nin aflagaadeeyay nabigeena Maxamed naxariis in nabadgelyo korkiisa haatay ayaa si xun loogu garaacay gudaha dalkaasi Nigeria dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday gudaha dalkaasi iyadoo shacabka muslimiinta ee reer Nigeria ay falcelin la yaab leh ka sameeyeen talaabada ay qaadeen booliiska wixii ka dhacay Nigeria galabta ay si guud u dulmari doonaan nin lagu eedeeyay inuu aflagaado diineed u geystay nabigeena Maxamed naxariis in nabadgelyo korkiisa haatay ayaa lagu dilay magaalo ku taala waqooyiga dalkaasi Nigeria Osman Bondo ayaa magaalada lagu magacaabo Sokoto ee dhacda waqooyiga dalkaasi Nigeria ku iibin jiray hilib wuxuuna ahaa nin hilibla ama dadka kawaanka hilibka ku iibiya dadka muslimiinta ay ku noolaa tuulo hoos tagta dalkaasi ayaa is abaabulay kadibna ku qaaday weerar ninkan aflagaadiyay nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haatay weerarka kadib ninkan ayaa dhaawac halis loo geystay waxaana dadku ay kala carareen markii booliisku goobtaasi soo gaareen afyeenka booliiska ee tuulada lagu magacaabo Sokoto Ahmed Rufe ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in markii ay booliisku gaareen goobta dadka ay meesha ka kala carareen ayagoo ay tageen ninkii oo miir daboolmay oo si xun loo jirdilay oo la garaacay kadib waxay booliisku sheegeen in ninkaas ay soo qaadeen oo isbitaal ay geeyeen Osman Bode ay booliisku sheegeen in isbitaalku u geeyeen si loo dabiibo oo caafimaad u helo oo la badbaadiyo balse isbitaalkii ayay ku geeriyooday dhaawacyadii soo gaaro aad u cuslaa darteeda ninkan ayaa loo dilay kadib muran soo kala dhaxgalay ilmo yaryar oo dawarsanaya kuwaas oo lacag weydiistay waa ilmaha yaryar ee dawarsada ee laamiyada jiifa dalkaasi ayaa lacag weydiisay ninkan kawaalaha ah ee hilibka iibiya ay shaqeynayeen waxaase la sheegaa kadib muran iyo dood dhashay uu aflagaadeeyay nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haatay goobjoogayaal ayaa sheegaya in murankan uu bilowday kadib markii uu wax u diiday ilmihii yaryar ee wax weydiistay kadibna waxa uu ku dhawaaqay erayo aflagaado ku ah nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa haatay tan oo keentay in muslimiinta kooban ama farakutiriska ay ku noolaa tuuladaasi ay ka caroodaan aflagaadada bareerka nabigeena loo geystay muuqaallo argagax leh ayaa lagu faafiyay baraha bulshada iyadoo ay muujinayaan dadka dhagaxaan ku weeraraya ninkan dhagaxaan tuuray ul baangad wax walba ay la dhaceen muuqaalo leh ayaa muujinay ninkan oo dhagaxaanta si loogu waday kadib sii dhacaya ayay kaamiradu soo qabatay muuqaaladii la helo argagax ahaa gudoomiyaha gobolkaasi Sokoto Ahmed Ali ayaa ugu baaqay dadka shacabka gobolka inay isdejiyaan mar walbana la ilaaliyo shariicada islaamka isagoo dhinacyada kale ugu digay dadka muslimiinta ah inaan lagu xadgudbin gudoomiyaha gobolka bishii May ee sanadkii hore ay ahayd markii sidoo kale gabar arday ah aflagaado diineed u geysatay dadka muslimiinta ah iyadoo kadibna weerar adag kala kulantay dhalinyarada kale ee muslimiinta ah jaamacad ku taala isla dalkaasi Nigeria garan isla magaaladan Sokoto ay dhibaato ay ka dhaceen ninkan ayaa ugu dambeyn hadda asagoo dhaawac halisa booliisku qaadeen la geeyay isbitaal deetana halkaas uu ku dhintay asagoo oo waliba si argagax leh u dhintay sida ay sheegeen dadkan waa dhacdada labaad isla sanadkan gudihiisa ka dhacaysa gobolkan lagu magacaabo ama deegaankan lagu magacaabo Sokoto oo dhaca waqooyiga dalkaasi Nigeria dawladda Nigeria ayaa sheegtay inaysan raali ka ahayn waxyaabaha mararka qaar aflagaadada ah ee loo geysanayo dadka muslimiinta ah sida dawladdu ay sheegtay warbixintan wuxuu ku soo kordhawanay eegi doona saaxiibayaal